السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jirto saddex muuqaal oo aan uga hadlay boqorada qalbigeena waa hooyo qaali. saddexda muuqaalba waxaan uga kala hadlay, waxaan rajaynayaa waliba inay ahayd afar muuqaal oo laba ka mid ah aan joogay xaflad, laba ka mid ah aan banaanka ku duubay. sidaa darteed dhammaan saaxiibadu su'aal bay isweydiinayaan, qof walba waxa uu u fakiray si gooni ah, qof walba si ayuu ula baxay. kuwa su'aal soo weydiiyeen iyaga oo ileh Caamir miyuusan aqoonin waxaanan ka ahayn hooyo. waxay iga sugayeen jawaabta inaan dhaho wax kale ma aqaano ama waan aqaanaa. sidaa darteed jawaabtayda haddaba dhagayso, cid walba isweydiinaysa Caamir miyuusan aqoonin waxaanan ka ahayn hooyo. su'aashaas haddaad isweydiinaysid hadda ayaan kaaga jawaabayaa. walal, cilmigii ugu horreeyay aan barto waxa uu ahaa cilmiga hooyo, waxa uu ahaa magacii ugu horreeyay aan ku dhawaaqo hooyo. waxa weeyaan kelmaddii ugu horreysay, qofkii ugu horreeyay ee qabtay waxa ay ahayd hooyo. sidaa darteed qofkii ugu horreeyay noloshayda igu soo dhaweeyay dunidan waxay ahayd hooyo inta badan. sidaa darteed ayadaa xaq u leh, ayada ayaa mutaysatay, ayada ayaan hiba ahaan u siiyey inta ugu badan kelmadahayga inaan ka dhaho. midaasna waa wacad iyo ballan aan la galay naftayda meel walba oo aan ka hadlo inaan fadligeeda iyo galladeeda ku bilaabo. sidaa darteed saaxiibayaal, ha xumaanina haddii aan ka hadlo hooyo inta badan. waan jeclahay maalin kasta iyo bil kasta iyo sanad kastaba inaan soo saaro muuqaal cusub oo aan uga hadlayo hooyo. marka aabe miyuusan ka hadlayn ayay su'aal kale soo daba dhigeen. waan ka hadlaynaa, laakiin waxaad ogaataan wax walba waqti ayay leeyihiin. sidaa darteed diyaarinta kelmadaha aabbo ku saabsan isaguna waan soo wadnaa. hadda waxaan bilownay inaan ka hadalno abaayo. sidaa la'alligeed haddii aad ka mid tahay saaxiibada ku xiran janaalkeenna iyo beejajkeennaba waad mahadsan tahay. haddii aadan ku xirnayna hadda maxaad sugaysaa? saaxiibayaal, waxaan idin leeyahay hooyo iyo aabbo inaan ka hadlo ama waalidiinta waa wacad aan la galay naftayda. sidaa la'alligeed maalmaha ugu qurxoon ee nolosheenna keliya ayaan inta badan isku nimaanaa. maalinkaas inaan waalidkeenna xusnana waa laazim, inaan waalidkeen sheegno maalinkaas inaan waalidkeenna u mahad celinno waa laazim. sidaa darteed hooyo iyo aabbe waa cilmigii ugu horreeyey ee aan ka barto dunidan dusheeda. waan ku jeclahay hooyo qaali. sidaa darteed baan inta badan kelmadahayga ugu soo daraa hooyo. haddaba aan idin xusuusiyo, maalinkii ugu qurxaneed noloshayda waa habeenkii hooyo ay dhegaysanaysay codkayga aniga oo ka hadlaya barnaamijkii haldoor oo aan ku sharaxayay kelmadihii ay hooyadii ii dardaarantay. hooyo waad mahadsan tahay, habeenkaas hooyo waan kula joogay, laakiin caawayto waan kaa maqanahay. sidaa darteed halkan ayaan kaa soo dhahayaa hooyo mar labaad waad mahadsan tahay. waan ku jeclahay xabiibtii, waan ku jeclahay xabiibtii. cimrigaaga allaha kuu barakeeyo, dunida ku waar jannada adduunka. dunidayda waxaan kuu sheegayaa jannadaydu inay taalo taxta aqdaamik yaa xabiibtii. hooyo, waxaad jannadu taallaa lugahaaga hoostiisa. sidaa la'alligeed wax walba oo aan awoodo, kelimad walba oo aan dhihi karo, inta aan awood leeyahay inaan adiga dartaa u hadlo waan u hadli doonaa. midaasna waa ballan aan nafteyda kula galay si sharaftii qaali. waxaan idin leeyahay dhammaan waalidkay iyo hooyooyinkeena Soomaaliyeed, ilaahay cimrigiina ha barakeeyo. meel walba oo aad joogtaanna waa wiilashiinii oo idin leh. meel kasta oo aad joogtaanna waa wiilashiinii oo idin leh. waan idin jecelnahay hooyo. inoo duceeya mar walba jannada iyo in alle uu rabbigeen uu noo dambi dhaafo inooga barya alle subxaanahu wa tacaala. adika ayaan waxaan idinku noqonaynaa, adika ayaanan wax idinku nahay. la'aantiina noloshu mugdi ayay ahaan lahayd. ma aqaano ilays ka nuur badan agjoogistiina, mana garan karaayo
labada nuur badan marka laga hadlayo qoraxda iyo adiga. maxaa yeelay qoraxda haddii la waayo waxaan rajeynayaa inaan faynuus shidan karno, laakiin adiga haddii lagu waayo ma aqaano faynuusta meel aan ka shidan doono, ma aqaan meel aan ka heli doono qof adiga noo kaa bedela. waan ogahay in sariirtayda iyo qolalkayga iyo istuudiyahayga oo idil aan bedeli karo, laakiin hooyo ii kaa bedesha haddii aad iga dhimato in aysan jirin. waan ku jeclahay hooyo, waan ku jeclahay hooyo معان. فضلكم يا والدي عمني حتى النجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن، اجمعوا كل المعاني